وبركاته أصحاب دمان وان سلامي دم كذا كعصب تايس وانوهين مقال كذا كاش الأكثر شاكذا نحيي ود على أني جرو طبعا استيسانو runtii gurigayga aad ayuu maalinkaas iga fogaa anigana waxaan ka imaaday shaqada wax gaari ahna ma wadanin runtii aad ayaa markaas u daalsan runtii cabaar markaas socdo oo ag maraayo meel cidna ay joogin wax kabaarina meesha ma mareenin runtii markaan dhaqaaq waay ayaan gaari meesha ku arkay horay ayaan u soo raacay kadibna waxaan imaaday gurigaygii runtii markii waa daalsanaa hurdo ayaa i heystay gurigana ninkayga ayaa markaas ila joogay aniga markaas hurdo ayaan heystay aad ayaa runtii habeenkaas zaad ayaa u daalsanaa kadib waxaan arkay ninkayga oo dhanka jikada u sii socdo runtii anigana baahi xun ayaa heystay waxna ana cunin ayaa markaas seexday runtii cabaar markaa jiifo ayaa waxaan dareemay inuu qof ag taagan yahay kadib anigoo hurdada markaas meel fiican ii mareysa ayaan ku naxay hurdada ninkayga ayaa markaas toosiyay runtii wuxuu ii toosiyay cunto inaan markaas cuno anigana runtii dhanka sariirtii ka maqlay shanqar sariirta hoosteeda markuu fiiriyay runtii wax uu ka waayay balse wuxuu yiri qof ayaa hadda ka qeylinaya sariirta hoosteedii runtii markaas aad ayaa markaas anigana u baqay markuu ii sheegay runtii waxaan dhahay maxaa aragtay waxa aragtay ii sheeg balse wuxuu yiri shanqar ayaan maqlay oo ma sidaas baa kadibna waxaan dhaanay wuxuu yiraahday dhanka banaanka ayaan aadaynaa halkaas ayaa ku sheekaysanayna nakaci kadibna waa baxnay saanu aadno dhanka banaanka runtii fadhiga ayuu markaas meeshii qolka fadhiga ayuu keenay runtii wuxuu yiri sheeko ayaan ku hayaa waxaan arkay kuma sheegin laakiin hadda ayaan ku sheegayaa runtii anigoo markaas aad u yaaban ayuu wuxuu yiri runtii hoosteedii waxaan ku arkay wax aad aan markaas oga naxo qof ayaa sariirtada hoosteeda ku jiray runtii aad ayuu markaas aniga oga baqay inaan ku sheego aadna waa u naxay waan gariiray markaas kadib runtii aad ayuu u sii joogay anigana waan ka cabsanayay inaan ku sheego kadib waan ku qoslay runtii waan aamini waay sheekadiisi balse kadib daqiiqado kadib booliska ayaa markaas noo imaaday runtii booliska ayaa markaas aniga aan la hadlay waxaan u sheegay arinta jirto kadib dariska ayaa markaas soo baxay waxay dheen gurigiina ayaan ka maqlayna qeyle aad u dheer runtii waxaan booliskana waan ku soo kacnay shanqartoodii kadib runtii markaas waxaan ogaaday ninkayga wuxuu sheegay inay run ahaayeen booliska markay meesha fiiriyaan waxay ku arkeen arin naxdin leh runtii tuug ay meesha ku arkeen oo markaas ku jiro balse aad ayaan markaas anigana u cabsaday runtii daqiiqado kadib wuxuu ii sheegay ninkayga inuu meeshaas nin uu ku arkay oo aad markaas u baqay runtii dhankaas iyo albaabka daaqada ayaa waxa ka yaray gaari hoonkiisi balse hoonkii markaan naqalnay aad ayaan markaas u sii argagaxnay ninka dariska ayaa wuxuu yiri qof ayaa gaariga sii waday anigana markaas argagax badan ayaa markaas igu dhacay runtii anigoo markaas yaaban ayaa booliska waxay sheegeen inay meeshaas ay ku arkeen midi qofkiina aad ayuu markaas waxay sheegeen markaas booliska inay ku arkeen midi bas meesha oo qofkii ka baxsaday oo midi bas ayuu meeshaas ku dhigay calamiina hadda meeshaas aan ku jiri lahaa aniga waxa igu dhacday arin la yaab leh meeshaasna waa ku dhiman lahaa balse waa iskaga guurna guriga kusoo dhawaada sheekadii labaad oo horta ahayd asxaabta muuqaalka daa ka heshay like saar channelka daa ku xusubtaa subscribe aniga waxaan ka imaaday safar aad u dheer waxaan u socday dalxiis saan u aado magaalo kale balse aad ayaan habeenkaas safar dheer u galay runtii guri ayaan soo ag istaagay gurigan wuxuu ahaa hotel anigana markaas baakinka meel aan ka gashtay waan waayay oo baabuurta ayaa meeshaas yeelay kadib meeshii anigoo daalsan ayaan alaabteedii la laawanayay saan gurigan u joogo balse dhankaas iyo waxaa iga jiray guri kale oo aad u qurxan oo keena aan laga aqoonin balse waxaan maqlay qeyle ka yeerayso dhanka gurigaas runtii aad ayaa markaas u gargaxay waxaan arkay qof meesha taagan oo aad aniga ii soo fiirinayo oo lagu qalqaloocana leh runtii aad ayaa markaas u baqay aad markaan u naxay waxaan arkay naagti oo isoo fiirinayso runtii markaas waan naxay waxaan damcay inaan gaarigayga dhankiisa aado gaarigayga ayaan qaatay waxaan rabay inaan ka tago meeshan oo magaalada waxa ka soo gato runtii gaari ayaa markaas
igu dhici gaaray anigoo markaas yaaban oo gaariga ku mashquulsan ayaan waxaan arkay arrin naaxdin leh nin aad markaas iskula hadlaayo oo dhankii qaylada ka yeereysay guriga joogo runtii ninka geedka ayuu la sheekeysanaya ayaa islahaa balse gaariga waan ka digay arrin la yaab leh ayaan meeshaas ku arkay waxaan arkay ninkii oo kaligiis daldalmaayo oo qofna uu ag taagan yahay qoslaayo runtii hadaba meesha fiiriyo waxaan ku arkay naagta xagga ay ku soo arkay oo geedka ku dhex jirto runtii meeshaas aad ayaan markaas uga baqay ani kaligay ayaan taagnaa runtii markaan cabsaday aadna waan u naxay kadib waxaan arkay ninkii oo markaas la sheekeysanaya naagta aniga markaas waxaan maqlay oohin ka yeerayso dhankaas geedka balse ninkii iyo naagta waxay ku wada hadlayeen waa garan waayay runtii cabaarna way isla taagnaayeen aniga markaas si zaad ayaan u naxay kadibna wuu macsalaameeyay wuu iskaga tagay anigoo markaas yaaban aadna u baqaayo ayaan waxaan ku laabtay dhankii iyo gaarigayga ayaan ku laabtay runtii arrinta naxdin ayay igu noqotay balse markaan kusoo laabtay meesha baakinkana waxaan arkay wax gaari ah inuu yaalin oo keyga ka ahayn waxaan ogaaday inay naagtaas iyo ninkaas ay yihiin dad ruuxaan ee gurigoodan aad u jajabsan yahay runtii safarkayga ayaa iskaga laabtay magaalada waa iskaga tagay halkaas ayay markaas ku dhamaatay sheekada. Hadaa ka heshay like saar channelka hadaa ku cusub tahay.